wafdi uu horkacayo siyaasi aadan ciise oo ka mid ah gudida kaambeynka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa socdaal daarana u diyaar garowga ololaha ku tagay deegaano badan oo tirsan waqooyiga Togdheer ay ka mid ahaayeen waaba caddo afweyne ceeldheer dawacaale huguf ilcarmo jablaha balli buraale warta sambuur balli rooble ilka cadays booramo didiinta iyo degmooyinka gabagaba iyo faqaayo deegaanadina ay cagta dhigeen wafdigu ayaa kala kulmay soo dhaweyn ballaadhan waxaana ay sheegeen taageerayaashii ku sugnaa deegaanadaasi inay taageersiin xisbiga kulmiye waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan soo dhaweynayaa Cuqaash halkan tiimi maanta ee ka socota xisbiga kulmiye ee noogu timi waaba caddo waxaan leenahay sida guriga noogu furaysan sideeda si ka badan baan idin soo dhaweynaa kal iyo laaba waxaan leenahay gurigana noo fura kulmiye oo maanta na soo booqday haddaan nahay magaalada ceeldheere aanu nahay garabka haweenka gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkii aad iyo aad baanu idiin soo dhaweynaynaa in badanna waanu idin sugaynay soo dhawaada keena siino xisbiga kulmiye waa sida weeyaan haddaanu nahay odayaasha reer ceeldheere waxaanu soo dhaweynaynaa xisbiga waxaynba waa tii u dooran jirtay inuu ganaaxi jirtay magaaladaas waa kulmiye maantana waa sidii deegaanka dawacaalinaya gir ku soo dhawaada waxaad ku tala gashaa haddaad ku guulaysato dadka ku soo dhaweeyay ee wax kula qabtay inaad wax dadka ugu qabataa un baa lagugu tixgelin doonaa ku ooli doonto ku kay doqon doonta aan ugu iman doontaan qarabka iyo gacantaba waanu idin siinaynaa si aad iyo aad baanu isoo dhaweynaynaa anigu waxaan ahay xalwa maxamed cawad baa la yiraahdaa waxaan ahay garabka haweenka kulmiyaanu nahay kulmiye soo dhaweynaynaa awal aanu ahayn iminka aanu nahay kulmiye maxay tahay martiyo mudane dhabtana waxa weeyaan waa degmada gabagabe haday ahaydna hore uma ahaan jirin mid iminka u cusub weeye waxtar badan oo aanu xisbiga kulmiye iyo dawladda Soomaaliland baanu ka helay way jirtaa degmadani haray u rigaysnay kulmiye ayuu naga warwari dooranayay waa meeshii aanu nidhi qof meel labaad ku ridi kara ma jiro sabuuxe abdi baan taageeraynaa waxa weeye waa kulmiye codkayagu degmada faqaayo 7 sano iyo 7 ka sii horeeyay kulmiye aanu ahay waxaanu leenahay kulmiye mikra waa nahay siyaasi aadan ciise iyo mas'uuliyiintii ku weelinaysay safarka ayaa hadallo dardaaran iyo mahadnaq u jeediyay deegaanadii ay soo mareen waxaana hadaladoodii ka mid ahaa axmed silaayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo wax qabad ku suntan iyo Muuse Bihi Cabdi insha Allah Abdullaahi Kariim oo xisbiga imika musharaxka oo isaguna insha Allah Abdullaahi Kariim halkii uu madaxweynaha dhigay ka sii qaadi doona wax qabadna ku suntanaan doona insha Allah Abdullaahi Kariim wuxuu xisbiga kulmiye aqoonsan yahay inay tahay saboolnimadu aafo qaran oo u baahan xal dhammaystiran Khadar Cabdirisaaq Salebaan Khadar Hanad Bulsha TV